كيس عبد الله حقيا ورفافنت حسبك معارض كيوعد وما انت شرشرات ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay eedeymo uu safiirka Soomaaliland u fadhiyo dalka Djibouti u soo jeediyay xisbigaasi isagoona tilmaamay in safiirku howlihii qaranka u hayay uu kaga mashquulay inuu magaalada Hargeysa waqtigiisa inta ugu badan uu joogo isla markaana hoosta ka xariiqay in wakiilka Soomaaliland dalka Djibouti u fadhiya uu dalal shisheeye u adeego waxaan doonayaa maanta inaan halkan kaga hadalno nin xalay toole TV-yada si xun uga caytamay ninkaasoo ku igman ama ku magacaaban wakiilka Soomaaliland u fadhiya Djibouti kaasoo caadaystay muddooyinkan u dambeeyay intii Muuse uu dalka madaxweynaha ka ahaa aflagaadada iyo cayda axsaabta mucaaradka inuu bilowgii markii Muuse dalkan madaxweynaha ka noqdayba uu aflagaada qaawan kula kacay gudoomiyaha xisbiga wicid waxaanu ka wada hadalnay madaxweynaha magacaabay madaxweynuhu raali gelin buu nasiiyay xisbi ahaan isaguna warqad buu noo soo qoray uu nagu raali gelinayo waanu ka diidnay waxaanu madaxweynihii ku magacaabay haduu raali gelin siiyo uma baahna raali gelin sidii buu TV-ga ula taagan yahay inankani waa inanka ugu dhaqaalaha badan safiirada Soomaaliland oo dhan $26,000 ayuu qaataa bishii waxa uu qaranka ugu qabtana ma garanayn waa ogtihiin intuu Djibouti joogo iyo intuu Hargeysa jooga inay Hargeysa ka badan tahay qarankaasi lacagtaas way ka khasaaray madaxweynuhu wali muu weydiin maxaad qaranka lacagtan ugu qabatay waxaynu ognahay safiiro ka shaqo badan oo ka dadaal badan oo ka karti badan oo aan $1 la siin $1 isaguna $26,000 buu ku qaatay wax alla waxaynaan garan wali TV-ga intuu soo fariistay qaranka wuxuu u qabtay iyo guushu qaranku gaaray iyo wuxuu intuu xilka hayay wuxuu u qabtay garanay marka horeba anagu waxaanu aaminsanay khalad bay idin loo magacaaba waxaynu ogeyn haddaynu soo qaadan ninkan qaranka xilkii koobaad uu qabta maaha kii ugu dambeeyay agaasimaha imika uu ka ahaa wasaaradda arrimaha gudaha waa ogeydeen waa kii gaariga la baxsaday gaarigii barasaabka hawd ee Ibrahim Xaaji waa tii laga furfuri lahaa bileer lambarkii intuu ka bedelay buu Djibouti la tagu la fariistay waa tii ergadu badatay waa tii axsaabta mucaaradku ka hadleen iyadoo la ogaa khiyaamada iyo tuuganimada qaranka uu ka galay ayaa haddana xil kale loo magacaabay qarankana gooru guul gaari doona garan mayno mar haddii kii xilka hayay uu xilkiisii musuq maasuqay oo uu tuuganimo ka sameeyay in haddana loogu abaal dareen xil kale la siiyo waliba lacag inta leegna la siiyo $26,000 buu qaataa bish safiirada dhowr safiir baan soo qaadanaya safiirka Sweden iyo ka Norway iyo ka UK iyo ka Jarmalku mid waliba uu ka firfircoon waanu kana shaqo badan kana karti badan $1 lama siiyo $1 sababta lagu siiyo dema Muuse adeeri abaatalo waxa uu xalay ka lahaa halkan ayay ku faanaan xisbiga kulmiye iyo isaguba 55 panel xisbiga uu 55 ka wuxuu ku qaatay waa midho daray oo aan duuduub ku liqnay buu annagoo eegayna shacbiga la il daran sixir bararka ay ragaadiyeen iyo dhibaatooyinka kale ayaanu ku liqan waxaanu sheegaynaa madaxweynaha waxaanu leenahay madaxweyne ninkan hore raali gelin baad uga bixisay imikana muddo 3 bilood gudahooda laba jeer oo kale TV-ga ka cayay waxaanu leenahay madaxweyne daadigu ka lag haysta qarankana waxa la wuxuu ugu filayay ma jiro cudahana waxaanu aaminsanahay inuu yahay maadaama uu miiriyaha dhowr jeer aanu ku aragnay isagoo dalal shisheeye difaacay inuu dalal shisheeye u adeegayaan nagu haysan inuu yahay nin dalal shisheeye u adeegaya waa ogeeyeen saaxiibkiisii ugu dambeeyay Maxamed Ibrahim Qabo de wixii uu ku sheegay uu ba soo baxaya wakii cawsiyo biyo ku nool ku sheegay Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Ariel TV Hargeysa